afar iyo tobanka bisha 11aad sanadku waa 2025 daawadayaal waa idin bishaareynayaa bishaaro weyn ayaan idinku bishaareynayaa waxaan maanta hadalkayga ka bilaabayaa isku duubnida bulshada reer Somaliland shacab iyo dawlad mucaarad iyo muxaafid faa'iidada ay leedahay marka ay arrintu tahay arrin qaran waxa aynu ku guuleysanay inaynu qarannimadeena wada difaacano waxa aynu ku guuleysanay inaynu hawadeena difaacano waxa aynu maanta guul ka joognaa in aynu isku daygii Muqdisho aynu totally burburinay waxa ay ku timi taasi shacabka reer Somaliland oo aan marnaba u kala bixin mucaarad iyo muxaafad waxa aynu noqonnay kuwa wada jira qarannimadu qiimo u leedahay isla markaana maanta muujiyay in ay qarannimadu leedahay qiimo gaar ah oo la wada ilaashanayo cid kasta oo hawshan ka hawlgashay waxaanu ugu hambaliyeynaynaa ugu mahad celinaynaa waqtiga ay geliyeen in ay hawshan isku dayga isbaarada Muqdisho ay dhabarka ka jabiyaan guulaha aynu gaadhnay waxa ka mid ah in hay'adda caalamiga ah ee traafalka adduunka xukunta IATA ay systemkii markii hore la geliyay ee Hargeysa in Soomaaliya ay xukunto visa loo doonayo laga saaray inaanay jirin diyaarad dambe oo dadka reer Somaliland weydiin doonta visa inaanay jirin inay systemka lagu soo celiyay Hargeysa iyo Berbera labada madaar ee caalamiga ah in aad visa on arrival aad ka helayso waxa aynu si buuxda u maamulay hawadeennii waxa aynu cadowga jamhuuriyadda Somaliland tusnay ilaashashada iyo wadajirka qarannimada jamhuuriyadda Somaliland inaynaan ka kaftamin waxa ammaan leh bulshada maanta mucaaradka ku abtirsata ee waqtiga weyn geliyay inay qarannimada jamhuuriyadda Somaliland difaacaan waa guulaha aynu maalin walba ku naaloon karro marka aynu kala garanno qarannimada iyo mucaaradnimada qofka reer Somaliland ee qaranka mucaarad ku noqda innaga maaha waa inaynu meel uga soo wada jeesanaa dadka kursiga ku tartamaya ee kursi jacaylku hayo inay kuraasta ku tartamaan oo si nadiif ah ugu tartamaan oo qolo waliba waxa ay kaga duwan tahay bulshada u soo bandhigto arrin aynu la yaabayna ma aha dimuqraadiyad baynu ugu yeedhaynaa inkastoo ay wixii dimuqraadiyad ahayna ay qabaa'il iyo qabyaalad had iyo jeer salka ku hayso haddana ugu yaraan weli waxaynu ugu yeedhaynaa xisbiya tartamaya laakiin qofka isagoo xisbi u tartamaya ama mucaarad sheeganaya qarannimada dhabarka ka jabiya oo hore u dhacday oo aan mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo qarannimada ay kala qiimo weynayd qof uu kursi la doonayaa kaasi innaga maahe waynu iska ilaalinaynaa insha Allah inteenna qarannimadu ku weyn tahay ee aan qarannimada ka hormarin qabyaalad ee aan qarannimada ka hormarin qof kursi doonaya hiilkiisa ee shayga qaranka la yiraahdaa uu qiimo u leeyahayna dhammaantiin waa idin mahadnaqaya waana guulaha aynu maanta gaadhnay haddii mucaaradka